Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Nabiil, kuna soo dhawaada dhammaantiin janaalka maanta. Waan ogahay inaan waqtiyadii dambe ka gaabiyay janaalka oo wax badan aan soo dhigin. Laakiin insha Allah waan ku dadaalayaa inaan soo dhigo muuqaallo wax laga faa'iidi doono. Haddaba maanta muxuu ku saabsan yahay mowduuceena? Waxaan ka hadli rabaa hadafka. Waan ogahay dhammaanteen inaan leenahay hadafyo kala duwan oo aan doonayno inaan xaqiijino. Waa wax aad u wanaagsan, laakiin marka aad xoogga saarto hadafkaaga, waxaad aadaysaa dhinaca guuldarrada. Haddaba sababtu maxay tahay? Aan marka hore kala saarno hadafka iyo wadada hadafka ama systemka waxa loo yaqaan. Hadafka waa dhacdo waqti yar oo kooban ah. Waxaa laga yaabaa markii aad gaarto hadafkaaga inaad saacado yar dabaaldegto kadibna aad halka kaga gudubto. Dhinaca kalena systemka ama wadada hadafka waa qaabka aad ku gaarayso hadafka aad leedahay oo aad doonayso inaad xaqiijiso. Si kale haddii aan u dhigo, hadafka waa buurta meesha ugu sareysa, halka systemkuna uu yahay qaabka aad buurta u korayso. Tusaale ahaan, YouTube ayaad samaysatay 100,000 subscribe inaad hesho waa hadaf, laakiin inaad samayso muuqaallo dadka soo jiidanaya waa wadada hadafka. Waxa aad doonaysaa inaad miisaan iska jarto ama aad hesho waa hadaf, laakiin inaad aado gymka oo aad aalmiitayso waa wadada hadafka. In bangiga ay kugu jirto $50,000 waa hadaf, laakiin inaad ganacsi faa'iido leh abuurto waa wadada hadafka. Haddaba hadafka iyo systemka waa laba arrimood oo kala duwan. Waxaana muhiim ah systemka sababtoo ah isaga ayaa kugu hagaya hadafka. Haddaba markaad hesho wadada hadafkaaga, hadafku waxa uu noqonayaa mid laga maarmi karo. Sababtu maxay tahay? Ma dhahayo hadafku maahan wax jira. Sababtoo ah haddii aadan hadaf lahayn, ma samaysan kartid wax system ah oo waad wareeraysaa. Dhinaca kale haddii aad leedahay hadaf laakiin aadan lahayn system, iyadana waa mid la mid ah oo ma garanaysid wax aad samaysid. Tusaale ahaan, bisha Ramadaan ayaa soo gashay. Hadafkaagu waxa uu yahay inaad 30 juz ee Quraanka Kariimka dhamayso. Markii ay bisha sii dhamaarabtay ayaa dib iskugu laabatay. Waxaad ogaatay inaad akhrisay oo kaliya 10 juz. Markaasna waad isdhiibaysaa oo ma aadan xaqiijin hadafkii aad lahayd, adigoona ka niyad jabaya. Haddaba marka maxaa sabab u ah? Waxaa sabab u ah in aadan dejin systemkaaga. Waxaad ogaatay oo kaliya hadafkaaga, laakiin ma aadan dejisan wax system ah. Waxaan daawaday waraysi dhalinyarada The Broad Life. Haddii aadan aqoon u lahayn dhalinyartaasi, waa dhalinyar samaysata hadafyo u muuqda kuwa aan suuragal ahayn in la rumeeyo. Haddaba dhalinyartaasi waxaa ka mid ah hadafyadii ay dejiyeen in markii uu madaxweynaha Barack Obama ay basketball la dheelaan. Aqoon uma lahan madaxweynaha. Haddaba hadafkoodu waxa uu ahaa inay Barack Obama basketball la dheelaan. Aqoon uma lahan. Maxay sameeyeen? System ay dejiyeen. Wadada ay hadafkoodu ku gaareenna waxa ay tahay. Dadka maraya wadooyinka Washington ee dalka Mareykanka ayaa waxay ku dhahayeen hadafkeena waxaa ka mid ah in Barack Obama la dheelno basketball ee ma naga caawin kartaan. Dadka markaas ay ku dhahayaanna maahan dad aqoon u leh madaxweynaha. Laakiin taas waxay u faa'iideysay in dadkaasi ay u sii gudbiyaan dad kale, dadkii kale u sii gudbiyaan ilaa markii dambe arrinku uu gaaray madaxweynaha. Barack Obama waa uu ka ogolaaday ugu dambeyn. Hadafku muhiim maahan, laakiin marka aad doonayso inaad xaqiijiso hadafkaaga, waxaa muhiim ah inaad xoogga saarto oo waqti ku bixiso systemka ama wadada hadafka aad ku gaari lahayd. Marka waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso, sideen u samaystaa system igu haga hadafkayga? Marka hore qof waliba qaab u gooni ah ayuu u samaystaa systemka uu doonayo. Laakiin waxaa jira 3 arrimood oo muhiim ah. Marka hore waa inaad ogaataa maxaa hadafku ah. 2 waa inaad isweydiisaa sideen ku gaaraa. 3 waa inaad samaysaa tijaabooyin. Aan sii faahfaahiyo marka. Tusaale ahaan waxaad doonaysaa inaad samayso application wax badan bedela. Waa hadaf. Laakiin wax fikrada kama haysid caalamka applicationada. Marka waxaad isweydiinaysaa sideen ku gaaraa hadafkayga ah inaan sameeyo application. Waa su'aal fiican. Waxaad ka baaraysaa internetka, siba YouTube-ka, cashiro kala duwan oo aad ka helayso halkaasi codingka iyo qaabka loo qoro. Waxaa laga yaabaa markii aad waqti yar waday oo aad baranayso qaabka applicationada loo qoro inaad caajisto. Markaana si aad u hormariso systemkaaga, waxaad samaynaysaa tijaabooyin adigoo wax ka bedelaya waqtigii aad wax baran jirtay oo aadna qori jirtay applicationkaaga iyo qaabka aad wax u baranaysay. Waxaana ogaataa mar walba oo qaladaad samayso kuma qasaaraysid oo waad ku sii hormaraysaa. Marka aad qalad samaysana waxaad ogaanaysaa waxyaabaha kuu diidaya inaad systemkaaga hormariso, kadibna waad iska saaraysaa si fudud. Ugu dambeynna waxaad helaysaa haddii aad sidaas samayso system kugu haga waxa hadafkaaga ah. Muhiimaddu waxa ay tahay inaadan xoogga saarin hadafka ee aad xoogga saarto wadada hadafka, sababtoo ah iyada ayaa ku gaarsiinaysa. Waad ku mahadsan tahay daawashada. Haddii aad is leedahay asxaabtaada waa u anfacaya muuqaalkan la wadaag.